بسم الله الرحمن الرحيم أنيقو بشير شعمر جود عاوة وبشو تهي لحية لباتنكي بشي تضباد جولاي لبادي كوني أفري طبانكي waxaan halkan kusoo duubayaa hees baroor diiq ah oo ka hadlaysa geeridii naxdinta lahayd dilkii fooshaxmaa waxshinimada ahaa ee loo geystay Saad Cali oo ahayd fanaanad Soomaaliyeed wadaniyad Soomaaliyeed oo ku hadaaqi jirtay Soomaalinimo waxay dhimatay 24kii bishan toddobaad laba cisho horteed heestii waxay tiri magacayga waxa la yiraahdaa maxaa sahalow saada loo dilay qof Soomaali ah dhiigaygu saxnaa Soomaalo mida sawdkeedu ahaa haddaan siifiyo surmaseegiyo surguc kale iyo sur inagu jirin maxaa sahalow saada loo dilay qof Soomaaliya dhiigaygu saxnaa Soomaalo mida sawdkeedu ahaa haddaan siifiyo surmaseegiyo surguc kale iyo sun inagu jirin maxaa sahalow saada loo dilay Soomaali haddaan seeta lala rabin haddaan sumadiyo sabadeeduba hasal guurtee salaanka u jara sirteedu ahayn saama lagu dhigin maxaa sahalow saada loo dilay saan cadaaliyo mid sideenoo saan madow iyo diin siloonoo sumadlaawiya sakooki wataa haddaan sabadii loo saxeexayn maxaa sahalow saada loo dilay haddaan suluxiyo samadoonnahay Soomaali haddaan suubanaaniyo sidii ay ahayd sahankeednahay saadaasheen iyo sodcaalku run yahay maxaa sahalow saada loo dilay Soomaalo mid ah inay u surmiday sarajoog iyo fadhi ku saliday subxaanoo tidhi Soomaalo mid ah inay u surmiday sarajoog iyo fadhi ku saliday subxaanoo tidhi markuu sixirkiyo saaxilku baxee Soomaali la helo sooyaalka qiri sawdkeeda jiri saadimay dhiman intaas bay heestu ku dhan tahay Allahu naxariista saada oo jannada ka waraabiyo